wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada waxaan isu taagi doonaa caqabadihii iyo dabcan dhibaatooyinkii sida gaarka looga diiwaangeliyey koobkii xiisaha badnaa ee sanadkan ay martigelinayeen saddexda wadan ee Mareykanka, Mexico iyo Canada. haddaba dhacdooyinkaasi gaar ah waxaan si gaar ah ugu eegi doonaa horey ma uga dhaceen wadamadii martigelinaya koobka, maxay uga duwanaayeen iyo sidoo kale caqabadaha ay la kulmeen ciyaartooydu maxaa ka mid ahaa. haddii aan ku bilaabo dhammaan xulku markii ay kasoo tagayeen wadankooda waxaa loo soo sagootiyey si qurux badan maadaama laga filanayay guulo iyo natiijooyin ay si gaaro iyaga ula iman kareen. inta marka laga soo tago imaatinkoodii Mareykanka waxay durba la kulmeen caqabado kala duwan oo ay ugu horeeyeen dalku galka wadankaas iyo sidoo kale inay baaris iyo fatashaad xoogan ay kala kulmeen wadanka Mareykanka. arrintaas ayaa noqotay hadalhayn iyo dabcan ceeb weyn oo filawa ku noqotay dadka xiiseeya kubadda cagta. sidoo kale waxaa durba laga bilaabay Mareykanka taag wadamada qaar si gaar ah diiradda loo saarayay taas oo noqotay wax ka baxsan xeerka kubadda cagta waxayna si guud filan ku noqotay dadka ka faalooda arrimaha ciyaaraha, garsoorayaal hore, ciyaartoy hore iyo sidoo kale shakhsiyaad hore oo sportska si gaar ah u falanqeeya ayaa waxa ka dhacay Mareykanka si weyn ula yaabay. Messi, Ronaldo iyo kuwa kale ayaa lagu arkayay sawirro iyaga oo baaris xoogan lagu sameynayo iyadoo waliba ciyaartoyda qaarkood ay ka ciyaaraan wadanka Mareykanka si gaar ah magaalada Miami oo ay dabcan xulalkooda ama kooxahooda ku matalaan. taa marka laga soo tago taasi waa ceeb u gaar ahayd Mareykanka oo dabcan ku noqotay filan waa garsoorayaal ayaa laga reebay tartanka oo qaarkood in ay Afrikaan yihiin awgood tartanka looga reebay waa ceeb kale oo Mareykanka tunka laga saaray wax badanna way ka jireen. intaa marka laga soo tago wadamada waaweyn ee tartanka ka qayb galaya muddooyinka dheer ayaa looga faa'iideystay arrimo siyaasadeed awgood waxaana mararka qaar la muujinayay in la geeyo goobaha ay ku tababarayaan goobo aysan u qalmin taasoo noqotay ceeb iyo fadeexad weyn. wadamada sida gaarka loo dabcan abaare waxaa ka mid ah Spain, Iran iyo wadamo kale oo mararka qaar caqabad ku noqotay inay helaan meel ay si gaar ah ugu diyaar garoobaan ka hor kulamada ay ciyaarayaan. Iran waa la ogaa inay wadanka Mexico ka imaanaysay kulankii ciyaarayso ka hor. arrimo siyaasadeed oo ka dhex taagnaa Mareykanka iyo Iran awgood ayay taasi ku dhacday. waa fadeexad kale oo ku cusbeyd kubadda cagta wax ku noqotay filan waa guud ahaan dadka kubadda cagta ka hadla. taasi waa taa marka laga soo tago si gaar ah waxa uu jiray in wadamada qaarkood loo diyaariyay meelo aysan munaasab ku ahayn waxay noqotay ceeb kale oo weyn oo mar kale uu Mareykanku qaaday kubadda cagtana aan dabcan laga filanaynin. sanadkan dhacdooyinka laga diiwaangeliyay waxaa ka mid ah in madaxweynaha FIFA abaalmarino iyo lacago la siiyay taas oo baraha bulshada iyo si guud warbaahinta loogu hadalhayay ugu dambeynna keentay in xataa ciyaartoy ka tirsanaa wadanka Mareykanka oo kaarka jaalaha loo taagay qaarkood in laga celiyo ama dabcan hawshaas wada hadal laga galo waa wax ka cusub kubadda cagta. haddaba waxa uu Mareykanku baraya dunida waa wax aan la filanaynin kubadda cagtana ka baxsan. qaar ka mid ah xeerarka kubadda cagta ayaa loo jabiyay si iyaga loo raali geliyo ugu dambeynna tartanka waa laga cirib tiray. intaa marka laga soo tago garsoore Cumar Artan oo Soomaali ah ayaa inuu Soomaali yahay awgood loogu diiday dalku galka Mareykanka wax ka badan 48 saac ayaa qol lagu hayay si loogu sameeyo baaris markii la ogaaday inuu wato dhammaan dukumentiyada ee FIFA uu kala yimidna waxa ugu dambeyn lagu wargeliyo dalkiisa dib ugu laabto. waa ceeb kale oo markii ugu horeysay taariikhda oo garsoore dabcan heer caalami ah FIFA ay soo dalbatay wadanka laga celiyo. FIFA arrinta waxay sheegtay inaysan waxba ka qaban karin awood badan aysan u lahayn. waa ceeb kale oo FIFA ku dhacday. Mareykanku waxa uu dunida tusayaa in aysan jirin wax xeer ah oo ku saabsan kubadda cagta laakiin waxa uu rabo ama maago oo isagu iskiis u sameyn karo. inta marka laga soo gudbo kuwaasi waa dhacdooyinkii sida gaarka isha loogu hayay waxaa jira kuwa badan oo dabcan qaadan waa noqday oo garoomada gudahooda ka dhacay. qaar ka mid ah taageerayaasha ayaa banaanka looga celiyay garoonka iyagoo waliba qaarkood ay tigidhada hore u sii gateen. waa fadeexad kale oo tunka loo saaray taasna waxay dhashay in ugu dambeyn dood weyn la geliyo martigelinta Mareykanku uu sanadkan sameeyay iyaga Mexico iyo Canada. inkastoo aysan doodo ka dhalanin Mexico iyo Canada haddana laakiin khilaafka ugu weyn waxa uu ka taagnaa Mareykanka oo ahaa saldhigga ugu weyn ee tartanka martigelinayay. waxaa kale oo la sheegay in xataa FIFA xeerar badan oo horey uga jiray koobka adduunka ay u burburisay raaligelinta wadanka Mareykanka awgiis. waa arrin uguba wax filan waa ku noqday bahda kubadda cagta. garsoorayaal iyo sidoo kale qaar ka mid ah bahda sportska ayaa sheegay in kani ka baxsan yahay xeerka kubadda cagta isla markaasna uu yahay raaligelin ka weyn waxa la filanayay. natiijooyinka isbiirsaday waxay keeneen in ugu dambeyn tartanku noqdo mid aan lahayn xiisihii laga filanayay. koobka adduunka markii ugu horeysay sanadahan waxaa ka haray xulal waaweyn oo saadaalinta afarta hore ku jiray. waxaa soo baxay xulal aan loo saadaalinayn tartanka in farnamaadkiisa ay iman karaan.
marka laga soo tago arrimahaas oo idil waxaa dabcan markan si weyn loo hadalayaa sanadka xiga martigelinta koobkan oo Spain hormuud u tahay iyo sida laga filan karo. waxaa dabcan ka horreeyay Qatar oo koobkan martigelisay si wanaagsan oo qurux badanna dabcan u muujisay iyada oo wax xeer ajabin taas oo ka dhigan in martigelintu markasta ay tahay meesha ugu munaasabsan ee tartanka xiisihiisa laga dareemi karo. Mareykanka, Mexico iyo Canada oo dabcan sanadkan si wada jira u martigeliyay ayaa la diyaarinayaa in sanadaha soo socda wixii ka dambeeya 46 iyagu ay mid kasta gaarkooda u qaadan doonaan. laakiin weli doodo badan ayaa arrinta ka taagan oo waxaa la diidan yahay nooca martigelinta ay sameynayaan in marka hore heshiis lagala galo maadaama khaladaad badan uu sanadkan ka dhacay. waxaa la howlgeliyay ciidamo badan oo dabcan ah kuwa sameeya baarista arrimaha la xiriira dadka soo galootiga ah. wuxuu Mareykanku sheegay in ciyaartoyda iyo taageerayaasha ka imanaya wadamada kala duwan ay wadankooda kusoo dhuumanayaan. dadkaas dabcan dalku gal saxa ayay intooda badan haysteen. ciyaartoy ayaa la celiyay, waxaa la dhimay dadka soo raacay ciyaartoyda, sidoo kale waxaa gebi ahaanba la yareeyay ciyaartoyda dadka ay martiyaanta usoo kaxaysan karaan iyadoo markii hore aysan jirin tiro cayiman markii koobka adduunka lagu qabanayay Qatar iyo wixii ka horreeyay labadaba. intaasi marka laga soo gudbo koobka adduunka sanadkan xiisihiisii waxaa lugta mariyay caqabadaha waaweyn ee ka dhashay Mareykanka. baarista lagu sameeyay ciyaartoydii waaweynaa ee koobka adduunka ixtiraamka looga hayay ayaa noqotay meel ka dhac sportska ku ah dhibaato weyn oo laga soo waaqsan karin. baarista Messi qaar ka mid ah sawirro lagu arkay baraha bulshada ayay ahaayeen oo si weyn lisu weydiiyey. xataa marka laga soo tago ixtiraamka loo hayo kubadda cagta Messi waxa uu ka tirsan yahay ciyaartoyda ka ciyaara waddanka Mareykanka, si gaar ah ka tirsan naadiga Miami oo ka mid ah naadiyada ugu waaweyn ee waddankaas. arrintaas awgeed laguma ixtiraamin. Ronaldo, mid ka mid ah ciyaartoyda ugu wanaagsan kubadda cagta, ixtiraam darro kale ayaa lagu sameeyay. baaris ayaa lagula kacay iyadoo weliba sawiradiisa baraha bulshada la wadwaday. Jarmalka, Spain, dhammaantood sidaas silmid ayaa lagu sameeyay. waddan kastoo ka qaybgelaya tartanka waa lagu tacadiyey. taas waxay noqotay ceeb weyn oo finawaa ku noqotay sawirada ka baxayay halkaas. waxaa la sheegay qaarkood in si ku talagala loo baahiyey taas oo lagu muujinayay in aysan halkan ka shaqayn wax FIFA la dhaho. waa ceeb iyo sumcad dil weyn oo sanadkan FIFA loo soo hooyay. madaxweynaha inta la arkayay waxa uu muujinayay inuu ku qanacsan yahay waxa socda, laakiin waa iska mala awaal. waa sheeko filawaa ku noqotay bahda kubadda cagta. intaa marka aan ka soo tago bal aan usoo gudbo xaguha tartanku maraya. saddexdii kooxood ee ugu dambeeyay ayuu tartanku markan taagan yahay. Spain finaalka ayay xaadir u tahay oo Faransa ay ka soo adkaatay. natiijada labada kooxood dhex martay waxay ahayd mid aan la filanaynin maadaama Faransa oo dabcan sanadkan si weyn lagu saadaalinayay koobka khadkeeda dhexe iyo difaacu uu ahaa mid aad u adag. ha yeeshee aan ugu dambeyn natiijadaasi waxba ka bedelin, waxaana qadka dhexe ka qabsay Rodri iyo qaybihii kala duwanaa ciyaartoydii kala duwanaa ee tartanka ka qaybgalayay. waxaa la ciyaarayaa tartanka kama dambaystiisa iyada oo markaasi uu yahay tartan ama natiijo xiiso badan oo ciyaartu ay si gaar ah uga bedeli doonto. iyadu saalanaysa koobka adduunka waa su-aasheena ugu dambeysa. qaybtan hoose ee faalada noogu reeb si aan markaasi ugu yaraan warbixino kala duwan oo dhanka ciyaaraha kula hadalno. soo dhawo.